حديث 19. احفظ الله تعالى يحفظك. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu ku soo jirnay axaadiisteennii 40 nabawi. waxaanu maraynay xadiiskii 19aad: احفظ الله تعالى يحفظك. عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لبدودaba alla raaliha ka noqdee waxaa laga wariyey qaala inuu yiri: kuntu waxaan ahaa khalfa النبي صلى الله عليه وسلم nabigii alle nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee mid dabadiisa fadhiya yowman maalin. faqaala wuxuu igu yidhi: yaa qulaam, wiil yahow, innii anigu acallamuka waxaan ku barayaa kalimaatin kelmado. ixfadillaaha, ilaahay xafid oo ilaali oo xasuusnow, yaxfadka, alla wuu ku dhowrayaadna. ixfadillaaha tajidhu tujaahak, ilaahay xasuusnow oo ilaali oo ku xidhnow, markasta alle wuu kula joogayaa, wehel buu ku noqonayaayo hortaada ayaad ka helaysaa. idaa sa'alta, haddaad cid wax weydiisanayso, fas'alillaah, allaha kore ee awoodda badan ee qaadirka ah ee wax kastaaba gacantiisa ku jirto isaga weydiiso. waidaa istacanta, haddaad gargaar cid weydiisanayso, fastacin billaah, allaha cidnaan u baahan ee isaga loo baahan yahay gargaar weydiiso. waclam, ogow wiil yahow, ana al ummatu, haddii dad oo dhani low ijtamacat ay isku yimaadaan calaa an yanfacuuka, inay wax kuu kaalmeeyaan oo wax ku taraan oo wax ku caawiyaan bishayin shay-un, lam yanfacuuka, midh kuma tari karaan, ilaa bishayin wax un mooyee qad kataballaahu laka, alle hore kuugu qoray oo alle kuu katibay. wain ijtamacuu, hadday isu yimaadaan dadku calaa an yaduruuka, inay ku dhibaateeyaan, inay wax ku yeeleeyaan bishayin xun ku dhibaateeyaan, lam yaduruuka, kuma yeeli karaan, ilaa bishayin wax xun qad kataballaahu laka, qad kataballaahu calayka, alle hore kuugu qoray. ruficat ilaqlaam, qalimaantii qadarka waa la laabay. wajafati suxufi, waraaqihiina waa angegeen. rawaahu tirmidi, xadiiskan tirmidi baa soo wariyey. waqaala wuxuu yidhi: xadiisu xasan asaxiix, xadiisu xasan saxiix. wafii riwaayati kayri tirmidiyna waxay tidhi: ixfad illaaha, ilaahay dhowro ilaali oo ku xidhnow, tajidhu amaamak, hortaadaad ka helaysaa. xadiiskan riwaayadan iyo xadiiska hore waa isku mid. tajid tujahak iyo tajid amaamak waa isku macne, labada kelmadood bay kala isticmaaleen. tacrif, aqoonso, ilallahi, ilaahay oo ku xidhnow, ilaa fi rakhaa'i, waqtiga barwaaqada aad ku jirto. yacrifka, alla wuxuu ku aqoonsanayaa oo ku barbar istaagayaa oo ku heelinayaa fi shiddati, marka
xaaladuhu kugu adag yihiin. Rakhaa waxaa kaloo la odhan karaa markaad dhalinyarta xoogga tahay, shidda markaad gabowdo, rakhaa markaad caafimaadka qabto, shidda markaad xanuunsato. Waclam ogow, rakhaa markaad lacagta iyo dhaqaalaha iyo nimcada ku jirto, shidda marka abaarta iyo oomaska iyo bisaarada aad ku jirto. Intaaba way noqon kartaa, waa lagu fasiraa. Waclam ogow anna maa akhda'aka wixii ku gafay lam yakun may ahayn liyusiibaka qaar kugu dhacaya, wamaa asaabaka kuwa kugu dhacayna lam yakun may ahayn liyakhda'ika qaar ku gafayay. Almacnow in qofku yidhaahdo balaayadaa igu dhici lahayd waxaan kaga badbaaday cilmigayga, kartidayda waan u jaray, shaxbaan dhigay, way aragnimaan kaga gudbay. Ma jirto, waxaan ilaahayba kuu qorin baad leedahay cilmi baan ku dhaafay. haddii alla kuu qoro cilmi kasta aad kaga baxso kamaad baxsan karteen. wamaa asaabaka wixii kugu dhacayna lam yakun liyakhda'ika waxba low yaanay waqti kaa ridin. wixii kugu dhacayna wax kulliba kugu dhacay ahaayeen waayo ilaahay baa kuu qaray. waclam ogow anna nasra guushu maca sabri sabarka ayay ku timaadaa. waxa weeye imisa ilaahay qur-aanka ku sheegay in sabirku uu yahay muxuu ahaayey sahayda mushkiladaha iyo mixnadaha laga gudbo. inaad sabirto, inaad ilaahay tula qaadato. wasbir wamaa sabruka ilaa waana alfarja farajkuna maca alkarb. wuxuu farajkuna uu la socdaa dhibaatada iyo murugada dabadeed. wa anna maca alcusri yusra culays kasta fudeyd baa ka dambeeya. waa aayad qur-aan ah. xadiiskaana intaas ayaan kusoo gabagabeynaa. wallaahu aclam.